dimaha siya idiyeno dodabtiyo dimaha adiga baday manka inuu ku boolyo adiga ba micneeya maxaaniya duke la anta noloshaydu iftiilani mayso la anta noloshaydu iftiilan mayso ilanku intumaha waxagtayda kuweyne إيسان وحير كدبون كوي من هاي ورور لعقتنا نقص قاضي هاتان تاكسي صاحي لنا ساعات كدبون كل شو غانيغو وخبري هاي كتغنيسان واي نينك توان كايستا ديك عيدانا وحبا كما يبينيو هورتا إيسان ند فانتي اسكو داي اديغو راليا نستيشي ومحي ماشي انو لا يمكن تاكسي لاي هاي انا صاحب انو يمكن تاكسي بان هلي سوغانا كوغو سو علني هاي باي باي سلام مدن مصطفى ايوا كا تاكسيغاغي يا رب ان اد بد ما حسنتahay يا ان walaal alaabtana ka dhacday qabso ma hadsanid maru adigoo raalliya taksiga inuu sugaya raacin iska daa iga raalna qaluuqada turkiga ma garanayo damay horta taksigu waa keegii ifaan ya waan ka xumahay laakiin anigu habsan baan heebay dirawal ila hadal ya diro ريبوتك دقسيك يا ذو راليا ومحي قبل أنا تاكسي قلب بحثتي walaalkayow imku aabay ka weydiinay ma soo socotaa waan soo socday diyaaraddan soo raacaya walaal haye walaalkay soo dheereete midda kale aabuu kacsan yahay yani diyaaraddu ka iman dhaqso waa inaad u timaadaa bal weeyaan kugu soo celi hortaysu ayo walaalkayow aniga hawlihii oo dhan dhameeyay waxa leedahay xitaa beertiisaan ka dhigay waa la yaab ma shaqo kalaan hay anigu laakiin diyaaradda yana ka iman hore noogu kaalay wariya shaahin war maxaad la qalqalinaysaa kan wuxuu ugu sheegaysaa ha iska maqnaadee dayaa u baahanba allah ilaahay nagu saasur waa dhaqsada idinkuna dhaqsada ma idinku yidhi oo dhammaan beerta soo jara oo soo xagaafo khudradana ku soo gura baallada loogu talagalay dhaqsada baa idinku yidhi wariya shaahin hee aabo إقرأ ليها صدقوا ما واحدة بتابع جرت محي ديارته كعلاذ لايمكا هي مرة واحدة بتابع مجران لكن وحنسوق نقفنا قد من وما حيقف كان غير مسؤولكي وحاسو ما درتي وحني بين مرة هران دول لهين بي صوما وحابد مدينة بيلي هاي هذا كريل باب ندلي الله ملاكن معها ميانو هين كان تاكسي كلا soo baxsaday wareede hooyo miyaanad xishoonin waxaa soo umada dartaaba waxaan imnaayeene garaal noqda habar yar waayo tiiro bilaa xishooda ayaa tagsigii diyaarsanay iga soo qaatay sida darteed ayaan u saabsaamay wax kale dhibaatiyana ma jirin iga raali ahaw ya iga raalaho malaa waan ku dhimay marweye adigoo raalliya soonkiga kacaan xidhee marwe miyaanid maqlayn soonkanan xidhow bannee yaa ma adigeebaa bal soonkan xidha iga kaca haa waayahay iga raaliyahow musalsalkan waxaad kala socotaan
NZR Drama Channel fadlan subscribe saar oo ka mid noqoto asxaabteeda nagu xiran ayaanu aadka u jecelnahay. cuntaduu jeclaaban aniguu sii diyaariyey waxaana rajaynayaa inuu ka helo waayo in badan buu naga maqnaa annaga inantaydan jeclaayay maanta soo baxaya welibana wax alaala wuxuu jeclaa waanu geynayaa oo maanta soo baxaya ii dhegayso hooyo looma baahna sidii hore u noolaa inuu u noolaado waxaan uga jeedaa inankaagu sariirta isagoo habiyuu seexanayaa inantaydii si fiican u dhagayso aniga iyo walaalaha iyo aabbaha marka ayaan ku sii soconnaa adiguna ha naga soo habsaamin waayo markuu arko dhammaanteen isaguna wuu nagu farxayaa waayo hooyo markaan cuntada diyaariyaan idii imanayaa goonjaal ma walaalkaabaa maanta la soo deynayaa السلام عليكم وعليكم السلام إيكالي ننتدي دعاقبتي هو ألعبتي قبو soo dhawaabo وندوي ننتدي ساتي waan fiicannahay aabbo ننتدي ملك إيكالي داو أوه إيكالي إن مفيعنتي ننتدي ساتي إن مياد عياريسي هاديكم محاد سمينيسي بليشيك ننتدي هاي ميلا ciyaaraysaa waa kula ciyaaray halkeen tagnaa maalka halkan hayeyna mari boqoradaydi hooyo uu daanliimaad ka deysid allah oo inantaydii xaflad baad samaysanaysay waxay sidani haa xalfad ayaan samaysanaya adiguna martideeda ayaa tahay allaha fariideydii waan gartay idhi balshaan waaban u xiisaybe bal handhadhamiyaysu alla inantaydii shaanu macanay gacantaad ku samaysay balidhib keen gacan barakaysan inantaydii ilaahay gacantaa ku barakeeya baan ku yidhi fariid baa tay idhib xalwadana alla awoowata isugu xiro kalaan soo qaadanaya orodoo cararo soo qaado waxaad doonto alla dee mudane waa la yaabay sida ballaadhan eed ciyaalkeerero ciyaarsiinayso adigoo kalena sida lagu helaa way adagtay oo miyaad ka hinaastay waar adigu oo miyaan lagu ciyaarsiin jirin anigu carruurtaan awowgu ahay waan ciyaarsiinayaa baan ku yidhiye iminkana dhegayso waariya adiguna dhammaantiinna waad imaqlaysaan waxaan doonayaa adiguna iminka inaad gabadhii keento oo ii dhasho ilmo kaloon awoowahay may maqlaysaa baan ku yidhi adigu noloshaaduna ha qurux badnaata baan ku leeyay inkaar ilaahay idinku rid waxaan idin sheegaba waxaad u ilowdeen si ogaan ma aha ii sheega idinkan idila hadlayaa dhaqsada bal maxay tahay sababtaa mar walba waxaanu samaynaysaan bal ii sheega bahlayahow maansuukhiyiintii ish nadiiray aabba maxaa ku dhacay miyad waalatay waan waashay aabbo waan waashay anigu waxay waalaya aabbo wax kale ma aha guunjooda axmed doqontaa walaalkeeda xabsiga ka soo baxay bay cunto sameeyeen aabba anigu wallaahi waxba ugamaan jeedin keliya wax salaa walaalkaa cunto u samee mudane maanu moodin isaga in loo samaynayo wallaahi bay naga tahay haddaanu moodino mamaanu samayneen bes inanteedii bes wax dhibaatii ma jiraan waa run aabadee waxaan ina macno ma laha baleeg waxaad iska leedahay waxaanu xumahay faraa ka qadso maaha aabba ma sidaa eradhayalkaabaad ku ilowday yaa ii sheeg dee ma ninkii ninkayga dilay baad doonaysaan gurigan ku noolahay inaad cunto uga samaysaan bal ii sheeg waad ka faraxsantihin soo maaha balbaashan xune bilaashoodka waxay ku hadlayseeg ma xishoonayso cuqdad baa dishay de shaahin inanta qaylada ka daawar soo deji waaryaa shaahin nagadaa adiguna buuqa nagu sii samaynaha iska nafistee inantaydu quruxda badnayd inamar hooy gudahan gelinaa waxba ha cadhoon imka goonjiye waayo qofka u sababa guriga inay dhibaatadu ka dhacdo waa adiga ogsoonow shaahin imika walaasha maxaan ku dejinnaa ilankii waa la soo daayey allah dabaykataanu garan maayo waxaan yeelnabe naaya naasli maxaad saa nooga soo eegaysaa sidaadood odhan doonta shaax ma nii keenay orod noo keen uun baahannahaye dee mayna wax kale haddii doonaya weydiisid baan islahaa deganaan ma haysaa anuu deganaan cunto laydhaa baan doonayaa innaa lilaah xasan xanuun ilin maxaan ku keennaa
cadowgii walaashiin baad gurigiina keensateen saad leeda guriga deganaanshaha hele ka waran sidee baa macquul ku tahay taasi waa maxay waxaan dhacayaa diyaaraddu markay kacayso waxyaalahan oo kale way samaysaa markay istaji lama baahna inaad cabsatay alla ilaahayow caawi waxaan u malaynaa inaan dhimanayno alla hooyadii macaaneey maxaan yeelnaa istaji baan ku idhi waxba ma dhacayaane war wabla waxba ma dhacayaan igaamo war miyaan arkayn waxay nagu dhacayaa dadkan oo dhan way garanayaane miyaynaan dhimanayn oo kaale adigu luuqadda turkiga waaba taqaanaaye luuqadda ma garanayada ilan tagsigumad ku xadaysa adigu yaa war waanu dhimanaynaa markaas adiguna waxaan jirin iyo tagsi baad iga xaddi nooga sheekaynaysaa ay ka waran malaayacni baa tahay maya alla hooyadayey walaa adiguna ha iga dheeraano haddii wax igu dhacaan iminka way badbaadi hayadhee bal halkaas iminka maxaan samaynaa waan ku baryaaya waxba ma dhaceen horta bal gacantanay sii daa teeda kale diyaaraddu markay kacayso waxaan way samaysoona ku idhi istaji bal horta wataatii ugu darnaydba mudanayaaliyo marweyn si aynaan u dhiman qof kastaaba waa inuu beelkiisa ku xidhaa kursigiisa ma maqlaysaa wuxuu leeyahay diyaaraddu way dhacaysaa inaguna dhimanaynaa beelka xidhaa la yidhi sidaanu dhicin way dhacaysaa lama odhan dee alla way hooyooy alla ilaahowna badbaadi ilaahayowna badbaadi bal wakaasi maxay samaynaa iminka diyaaraddu way dhacaysaaye 6 sano kaliya taayoo aa bixinaa markaasadii leedahay wax kastaba iska ilow ii sheeg ma sidaas ninkay ku ilaabaya anigu teeda kalaaba ma sidaasan cadaalad ku helay anigu ii sheeg bal 6 sano kaliya tuu xidhnaa ayaan ku ilaabaa soo maaha ninkaygu u dilay ii sheeg balaabo wixii dhacayba way dhaceen adigana waxaa loo baahan yahay ehelkeena dartee inaad waxaan oo dhan u ilowdo ee iska ilow baan ku odhan lahaa oo iska cafi dadkan adiguna dhaawacaaga dhayo qof adag noqo baan ku idhi waxaana imika way soo dhammaadeen inantaydiiye sidee baan anigu dhaawacayga u ilaabaa aabbo dhaawaca aniga reerkaasii gaystay sidee baan ku ilaabaa taa waxaa aniga igaga daranba gurigan ku noolaa ayaa cunto lagu samaynayaa waxaasoo dhanna wax ka dambaysa naagtaa yare xunay walaalaa yihiin horta inantaadu midhaawad ku saxsantay inanta yarina inay awooddaa yeelata maaha sidee bay cunto ugu karisaa inankan yaray walaalahayin gurigeenna dhexdiisa midhaas midha macquula maaha waadnad ku saxsantay inaad waxaad doonto ku samaysa laakiin may aha inay iska cafi iska cafiyaa aabba ma waxay kula tahay dhaawacu ninkaas sii geystay inaan aayar ku ilaabayo soo sida kula ma aha nihaad waxa weeyaan ninkii aniga ninkayga dilay intaasoo dhan aniga waxa igaga daran waxaasoo dhan aniga waxa igaga daran inay walaashii gurigan ku noolaa cunto uga samaynayso markastan iyada wejigeeda arkana waxaan ka dhex arkaa dhaawacu walaalkeedii geystay aniga markaasadii leedahay adiguna dadkii waxaasoo dhan ku geystay iskailow taasina ma dhacayso iga raalli ahaada in yar walaali banneeya walaa adigoo raalliya waxaan u baahnaa gaadhi tagsiyon karaysto waanu ka xunnahay marwo baabuurtidii kalada ahana way dhammaadeen maxaad uga jeedaa way dhammaadeen waxaan uga jeedaa marwo diyaarada aanan islayn way imanaysaa ayaa sikadiisa ku timid markaa rakaabka aanan ku talagelin baa sababay marwo alla maxaan sameeyaa haddana anigu ma ninkaasan ku noqdaa teeda kale meeshu tegaya maxaan ka garanayaa marwo ninkaasina wuxuu tegaya halka tegaysa haddaad doonayso mudane adoo raaliyaalkan ii saxeex kembel waa yahay waxaan maqlay inaad arjuub tegayso waan tegayay laakiin maxaa dhacay
aniguba sidoo kale halkaysan tegaya waxaanan jeclaystin inaan kusii raacayna mare iga raalli ahaw anigu aftirka kuma hadlo waxaad leedahayna ma garanayo waxaa dhammaaday baabuurtii meesha adigoo raaliya markaan ku raacay iska kaydaa miyaanadii maqlin waxaad leedahay ma fahmaya baan ku odhiyey waan ku arkaya ma doonaysa inaan ku raaco kiin iga raaliha waxbaan samaynayaa anigu maanta lagama yaabo inaan kaa hadho wixii doonaa waxa u dhacaan uun ku raacaya anigu tani waabay dhibtayba nasliyey hee walaashee hooyaadoo raaliya weelkan iska dhig cuntada wiilkoo diyaari qofun aynugu dhiibne hey walaashii weelkanan dhammeeyana cid igu dhiibiye haddii aad doontaan idinku cuntadan iskaba daadiya waa isagu guriga aabbiyaha ayuu tegayaa laakiin si marwa goonja laakiin aniga haygula meeraysan baan ku idhi waxaan idiin sheego keliya waa inaad samaysaan bal ii sheeg maxaad samaynaysaa maanta joog fara badan bayn qaadanay inagoon isgaranayn sug bal hortaan ku sawiree bal magacaygana ii sheeg mustafe mustafa maxaya miyaadna nas lahayn mustafe jandamiir haye barasho wanaagsan intaa kadibna intee markaana hee dee bal magacaaga adigu ii sheeg maariya maxaad qabataa mustafe jandamiir qofkuna nays xumaarta magacaagii iyo sawirkaagiba saaxiibadii baan diray si markaaba lagu soo qabta dad wax igu samaysiin markaa waxba igu samayn baan ku odhan lahaa waayo turkidoo dhammaaniga way dhaqaaqaysaa weliba turkida qodhamaaha kolombiyaanka xataa markaa labada dowladaha isku dirin marka maxaad ugu malayseen wax kugu samaynayo mubadcad baan kuula ekaaday dee wax kastaba oo suuragal adigana wax aqoonin ku leeya ma jirto dee haya haddaanaad aqoon ii lahayn miyaad isukii soo aamini lahayd adigu horta mustafa badhcad uma eegid laakiin muuqaalkaaga tuugtuug buu eegyahay dee maxaaban ka ogayna dumarkaba disho haddaad keli ku hesho maxaad samaynaysaa iminka waa maxay ujeeddadaadu adiga ayaa gaadhigan soo fuliya anugu kuma soo saarin marka haddii aad boqonayso oradoo iska deg maya maya anigu sideedaba ma cabsanayo kursigana si edeb laan fadhiyayaa maxaad se iga sheegaysaa moobaylkana hoo qabso waxaad doonto samee hoodee maa iska dhig meeshiisa baan ku odhi mar dambana waan baqaya wax ayaana ka maqlan okey markaan sidaa ku eegay naftaada kalsooni badan baad ku qabtaa adigu miyaanad naftaada kalsooni ku qabin bal ka waran sidaad iga filisa haddaan ka halis badanahay anigu waxaan aaminsanahay wuxuu ilaahay qoroo keliya tiina kugu dhacayaan anigu horta qadarka ma aaminsani laakiin ogsooni waxaad naftaada u geysato ma kugu dhacayaa mararka qaarkood waxma dooran karsid ee waxaad ogsoonaata inuu qadarka ku dooriya wax adiga kugu dhacayaa
adigoo raaliya xamaan baan yara baahanahay waxoogaa kadib bayn magaalada gelaynaa marka waad iska samaraysaa dee walaaloon kuu xiisi doonnaa nabadgeliyo hooyaabo wuu soo baxay baan kuhi walaalkii sayaca wuu soo baxaye allah ugu dambayntii xaajiinankeena uu soo baxay alxamdulilah ilaahay baa mahaddaale allahooyo wiilkaygii maxaan kuu xiisay kaale laabtay geliyooyo inankaygiyo mar haddaad soo baxday abba waa alxamdulilah waanu kuu xisnay inankaygiyo walaalkayga qaaliga ahaa walaal laabtii geli waan kuu xisee ilaahay dhibka ha kaa dulqaado walaal maxaa kuu dhacay isla beddeshay tanna iminka halkay ka timid xushmadow xaaji bal wuxuun samaydee inad saydiyey maxaa halka ku keenay maxaad halka ka soo doontay inankayga maanta la soo daayay maxaad doonaysaa mudane xushmadow innaga waxba inagama dhexey aniga horbaydh naamiyaada waxba maqlayn nadhaaf baan kudhnay nadhaaf iga horbaydh waryaa walaalo aduu iskaga dhex bax haddii ay idinku cid ciqaabaysaan si alla sida jeceshiin u ciqaabaa lixdii sanno ee adigu aad xidhnad anigii nafteedii warwariyo walaac baan ku wada noolayn sheeladan madowna adigan kula sugay ilaa intaad ka soo baxayso si aan weliba wejiga kaaga dhufto niihadow maanta ayay murugadii dhammaatay aniga taana ilaahay baan ugu mahadnaqayaa miyaad garanaysaa sababtaa sababtu wax kale maahe adiga ayay ciqaabta ku bilowmaysaa dadkan badan adigaga daba dhuumanaysaana suuragal maaha marnaba inaga kaacliyaan aniga sidan anigu u murugooday markaad ninkayga iga dishay si lamid ay u murugoon doonaan musalsalkan waxaad kala socotaan NZR Drama Channel fadlan subscribe saar oo ka mid noqon asxaabteeda nagu xiran yaanu aadka u jecelnahay imiga baanu kuma sugi karaya xalaanka hore uga kaalay waayahay walaalkayow nacas xumo doqonan soo raacay uf walaala mustafe diyaaraddii ma ku nabad keentay xaggeed soo socotaa haa walaal way nabad keentay waana soo dhowaayay imigana magaalada ayaan soo galay dee meel kaalin ayaan ka adeeganaya anugu bal malaaka iga hor sidee tahay halkay iska fiicantahay malaaka oo ilaahay baa ka wanaagsan laakiin dhib yar baa jira dee nadiiraa yara cadhaysanoo maalmo aan kacsanayn yaa dee walaal maantuu kii niihaad ka soo baxayay saldhigga oo kala guurkii bay ahayd ma maanta isagu soo baxayaa haa walaalkay maanta soo baxayay ballaqsan noogu kaalay walaala dee haadna caawi sida cidaan adiga ahay nadiir ma maqlaysee haye waan idin imanayaa waayahay walaalkayo shaahin hee shaahin nadiir waxay ka daba tagtay goonjow aabiley wax samaysaa iyadu allah maahe warya shaahin hee aabbo orodoo soo eeg baan ku idhi intaasii inugu dhagarowdaaba inan tan yariye ta aabba joog aan weydiina meel kala tagtay in kale aan qaraace ya u dhacayaabe
hee shaahiinow una waan ku baqnay halkay tagtay maxaad igu baqanaysaa shaahiin anigu ina taweynaynta leeg baan hawas ilaalinayaaye noloshayda adduunka inta siiyay baaqi taku aaminay ruuxda siiye idhiyeelo soo dhabtiyadi maaha siiye idhiyeelo soo dhabtiyadi maaha adiga baday maankan inuu ku boolyobo adigaba micneeya maxaaniyaya adduunke la'aanta noloshayda